السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena zaman iyo xilli aynaan hadda garanaynin xilli ay ahayd iyo zamankii ay ahayd ayaa waxaa jiri jiray degmo ay degganaayeen dad mushrikiin ah. degmadan boqorkeeda iyo dadkii degganaaba waxay ka lumeen waddadii toosnayd. waxay alle subxaanahu wa tacaala la caabudeen wax aanan waxba u dhibi karin waxna u tari karin. waxay asnaamta caabudeen iyagoon wax daliil ah u haysanin in ay ilaahyo yihiin. sidaasoo ay tahay haddana waxay ahaan jireen kuwo aad u difaaca ilaahyadan ay gacantooda ku samaysteen. marnaba ma aysan oggoleen in ay cidina xumaan ku taabato. waxay dhibaato u geysan jireen qof walba oo ku gaalooba oo aanan caabudin. degmadan aadka u fasahaadka badan ayaa waxaa ka soo dhexbaxday koox dhalinyaro ah oo uu alle subxaanahu wa tacaala caqli iyo garasho ku manaystay. waxay ahaayeen koox yar oo caqligooda xakamaysay oo diiday in ay u sujuudaan allihii khaaliqa ahaa ee abuurtay kayrkiisa. waxay ahaayeen koox dhalinyaro ah oo alle subxaanahu wa tacaala rumaysay oo kadibna alle subxaanahu wa tacaala uu u sugay iimaankooda oo hanuunna u siyaadiyey. wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala ku ilhaamiyey waddadii toosnayd. dhalinyaradan ma aysan ahayn ambiyo iyo rusul midna, mana aysan ku waajibin adkaysiga ku waajibay ambiyada ama rususha si ay qowmkooda ugu yeeraan dacwada. waxay ahaayeen oo keliya dhalinyaro uu alle subxaanahu wa tacaala iimaanka ku ilhaamiyey quluubtooda. waxay qowmkooda ka diideen shirkiga iyo caabudista alle subxaanahu wa tacaala kayrkiisa. waxayna weydiiyeen in ay keenaan xujo ama daliil muujinaya in alle subxaanahu wa tacaala kayrkiisa ay jiraan ilaahyo kale. kadibna si ay u badbaadsadaan naftooda iyo diintooda waxay go'aansadeen in ay ka hijroodaan degmada oo ay u hijroodaan meel aamin ah oo ay alle subxaanahu wa tacaala keligiisa ku caabudaan. maxaa yeelay degmadu waxay ahayd degmo fasahaadsan oo dadkeeduna ay lunsan yihiin. waxay go'aansadeen in ay ka tagaan degmada oo ay tagaan god ku yaallay meel cidlo ah si ay halkaas gabbaad uga helaan. iyagoo uu la socday eygooda ayay intay ka soo baxeen magaaladoodii ballaarnayd waxay tageen godkaas cidhiidriga ah. waxay ka soo tageen guryahoodii qasriyada ahaa si ay u degaan godkaas cidlada ah. qolalkoodii balballaarna waxay ka doorteen godkaas cidhiidriga ah oo mugdiga ah. arrintaasuna qariib kuma ahan qof qalbigiisa uu iimaan ka buuxo. mu'minku saxarahaas ayuu beer u arkaa haddii uu dareemo in alle subxaanahu wa tacaala uu la jiro. godkaasna wuxuu u arkaa qasri haddii uu alle subxaanahu wa tacaala u dooray. dhalinyaradan degmadooda kama soo tagin si ay adduunyo iyo maal u raadiyaan, balse waxay u soo baxeen si ay rabbigooda subxaanahu wa tacaala u raalligeliyaan iyo in ay raadsadaan meel ka khayr badan degmadooda oo ay rabbigooda subxaanahu wa tacaala ku caabudi karaan oo ay ku kasban karaan raalli ahaanshihiisa subxaanahu wa tacaala. kadibna maadaama ay soo daaleen waxay dhalinyaradan dhex jijiifteen godkooda, eygoodana wuxuu u fadhiistay godka albaabkiisa. kadibna waxaa halkaas ka dhacday mucjiso rabbaani ah. waxay dhalinyaradani halkaas hurdayeen 309 sano oo xiriir ah. muddadii ay halkaas hurdayeen waxay qorraxdu markii ay soo baxayso iftiinkeedu godkooda ka qabanayay dhanka midigta, halka markii ay dhacaysana uu ka qabanayay dhanka bidixda, iyagoo aysan si toos ah ugu dhacaynin qorraxda fallaaraheeda.
waxayna ahaayeen kuwo isgedgedinaya inta ay hurdayeen si uusan jirkooda dhinacna uga murxin. Qofkii eegana wuxuu dareemayay cabsi iyo argagax, maxaa yeelay waxay ahaayeen kuwo hurdaya, balse isgedgediskoodii badnaa awgeeda waxaa la moodaa in ay soo jeedaan, taasoo keenaysa in laga cabsado. Maxaa ku dhacay dhallinyaradan markii ay ka soo tooseen hurdadooda? Xagguuse ku yaallaa godkaasi? Eyguse muxuu u raacay? Muxuuse godka ula dhexgeli waayey? Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala dib u soo saaray 300 oo sannadood kadib. Waa ay ka soo tooseen hurdadoodii dheerayd, balse ma aysan garanaynin inta waqti ama inta saacadood oo ay halkaas dhex jiifeen. balse waxaa ka muuqatay raadka ama saamaynta hurdadii dheerayd ee ay halkaas ku dhex hurdayeen. Markaas bay waxay isweydiiyeen, meeqa saacadood ayaan hurudnay? Markaas bay waxay qaarkooda qaarka kale ugu jawaabeen, waxaan hurudnay maalin ama maalin barkeeda. balse kuma aysan daahine, isla markiiba waxay u gudbeen marxaladdii iyagaba ka yaabisay. Muhiimad ma aysan siinin muddadii ay hurdayeen, balse waxay muhiimadda siiyeen in ay maamushaan arrimahooda. Kadibna lacagtii ay wateen intay soo bixiyeen ayay midkooda waxay ka dalbadeen in uu si qarsoodi ah magaalada ku tago oo kadibna uu raashin wanaagsan uga soo gado. oo kadibna uu si qarsoodi ah ugu soo laabto isagoo uusan qofna dareemin. Maxaa yeelay waxay ka cabsi qabeen in ay ciqaabaan boqorka ciidankiisa ama kuwii dhaalimiinta ahaa ee qaryada degganaa, ama in ay kala dooransiiyaan in ay shirkigooda ku laabtaan ama in ay dhagaxaan ku rajmiyaan ilaa ay ka dhintaan. Kadibna wuxuu ninkii mu'minka ahaa oo ay dirsadeen u kacay magaalada xaggeeda. balse waxaa kedis ku noqotay in wax walbaba aysan ahayn sidii uu ku ogaa. Wuxuu arkay in ay iswada beddeleen meelihii iyo wejiyaduba. Waxaa isbeddelay badeecooyinkii iyo lacagtiiba. Waxaa ninkii la yaab ku noqotay sida ay waxaanoo idil maalin iyo habeen keliya isku beddeleen. Waxay dadkii degmada degganaa dareemeen ninkan yaabka haysta. waxayna dharkii uu watay iyo lacagtii uu watayba ka dareemeen in uu yahay nin qariib ah. Markii ay dhallinyaradan ka soo tageen kadib, ayay dadkii halkaas degganaa dhammaantooda Alle wada rumeeyeen. Sidoo kale waxaa halaagsamay boqorkii dhaalimka ahaa, waxaana booskiisa yimid nin wanaagsan. Markii ay ogaadeen kadib, ayay dadkii halkaas degganaa aad ugu farxeen dhallinyaradan aragtidooda, maxaa yeelay waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee degmadaas ka islaamay. Waxayna qaryadooda ooga haajireen si aanan diintooda looga fitnaynin. balse waa kuwan oo haddeertaan soo laabtay. Sidaas darteeda waxay dadkii halkaas degganaa xaq u lahaayeen in ay ku farxaan aragtidooda, kadibna waxay aadeen godkooda si ay u soo eegaan. Kadib markii ay sugnaatay mucjisadii dib u soo noolaynta wixii dhintay, oo dadkii halkaas degganaa ay yaqiinsadeen awoodda uu Alle subxaanahu wa tacaala u leeyahay in uu dib u soo saaro. maadaama ay tusaale cad oo la taaban karo hortooda ku arkeen, wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala dhallinyaradii ka wada qaaday naftooda. Maxaa yeelay naf walba waxay leedahay ajal, waana qasab in ay dhimato. Kadibna waxaa isku khilaafay dadkii halkaas degganaa. Qaarkood waxay soo jeediyeen in dhismo laga dhiso godkooda dushiisa. qaarkoodna waxay soo jeediyeen in ay masaajid ku dul dhisaan. Kadibna waxaa guulaysatay kooxdii labaad. Wuxuu Alle yidhi subxaanahu wa tacaala, wa kalbuhum baasitun dhiraacayhi bilwasiid. Maxay ahayd sirta ka dambaysay la joogista uu eygu la joogay dhallinyaradan? Maxayse ahayd sababta uusan eygu ula dhexgelin godka?
waxay in badan oo culimada ka mid ah sheegaan in eygii la socday dhalinyaradan uu ula socday ugaarsi oo keliya. sidoo kale waxay culimada qaarkooda sheegaan xikmadda ku jirtay in eygan uu la jiro ama uu la socdo dhalinyaradan in ay ahayd in eygu uu yahay xayawaan aad u jecel in uu la saaxiibo bani aadamka iyo in uu u ilaaliyo naftooda iyo maalkooda. wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala naxariistiisa eygan ugu manaystay in uu ka mid noqdo mucjisadan weligeeda jiri doonta. wuxuuna halkaas la joogay 309 sano isagoo u fadhiyay godka albaabkiisa si uu uga ilaaliyo cadowga iyo xayawaanada duurjoogta ah. ibnu Jurayj wuxuu yidhi kaana yaxrusu calayhim albaab, wuxuu ahaa mid albaabka ka waardiyeynayay. wa haadaa min sajiyatihi wa tabiicatih, taasna waxay ka mid tahay eyga dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa. xaythu yarbidu bibaabihim ka'annahu yaxrusuhum, wuxuu albaabkooda u hor fadhiyay sida isagoo waardiyeynaya oo kale. sababta uu albaabka bannaankiisa u fadhiistayna waxay ahayd maxaa yeelay malaa'igtu ma soo gasho guri uu ey ku dhex jiro, sida ku soo aroortay axaadiis saxiix ah. waxay inta badan kuwa baaxisiinta ah ama wax baarbaara sheegaan in godka la yiraahdo Raqiim oo ku yaala degmada la yiraahdo Rajiib oo ku yaala koonfurta magaalada Cummaan oo ah caasimadda waddanka Urdun uu yahay halka uu ku yaalo godkii ku soo arooray Qur'aanka Kariimka ah. gaar ahaanna waxay arrintaasi xoogaysatay kadib markii la xaqiijiyay in masaajid uu ku yaalo godka dushiisa, arrintaasoo ay xoojinayso aayaddan ka midka ah Qur'aanka Kariimka ah. wuxuu yidhi Alle subxaanahu wa tacaala faqaaluu bunuu calayhim bunyaana rabbuhum aclamu bihim قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. balse waxaa jiraan arrimo badan oo dhalinyaradan la xiriira oo aanan la ogeyn. ma waxay ka horreeyeen xilligii nabiyullaahi ciisa calayhi salaam mise waa ay ka dambeeyeen? ma iyaga iyaa si iskooda ah rabbigooda subxaanahu wa tacaala u rumeeyey mise mid ka mid ah xawaariyiinta ayaa Alle xaggiisa ugu yeeray? degmadoodu ma waxay ka mid ahayd bilaadu Ruum mise waxay ka mid ahayd Falastiin? ma waxay ahaayeen 3 oo uu 4 ku ahaa eygooda mise waxay ahaayeen 5 oo uu 6 ku ahaa eygooda? ama waxay ahaayeen 7 oo uu 8 ku ahaa eygooda? dhammaan arrimahaasi waa kuwo aanan la ogeyn. wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala ina faray in aanan ku doodin arrimahaasi. wuxuuna ina faray in aan cilmigooda Alle subxaanahu wa tacaala keligiisa u dayno. cibradu ama muhiimaddu kuma jirto tirada, balse waxay ku jirtaa ujeeddadii laga lahaa arrinkan. muhiimaddu kuma jirto in ay 4 ahaayeen ama in ay 8 ahaayeenba, balse waxaa muhiim ah in Alle subxaanahu wa tacaala uu soo toosiyey in ka badan 300 oo sannadood kadib, si uu Alle subxaanahu wa tacaala u tusiyo kuwa isaga ku caasiyey in uu dib u soo noolayn karo kuwa qabuuraha ku jira, iyo si ay mucjisadan rabbaaniga ah ay dadku jiil ka jiil isugu gudbiyaan. Alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.